السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أرضي شرفت للسود هذا ما شاء الله وحارجينا إنا عافماد قبطان سلم الحمد لله وصلى أبطي وإن كرها لقلنا يا معلمه أمغنا ما أنت هالكان مركو حا إنه هي وذا الشكاسي آد وحسب بدن وأرضي آد وسوع سنين أو together. So عوانك وذا الشكاسي وحا أوليه هي love conversation between a girl and a boy part 2. Okay, so وذا الشكاسي جعيل وويل إيجابر dhaxmaraya qaybta labaad qayb hore aan ka soo hadlay ayaa jirto. Okay, fine. So marka waxaan halkan ku baran doonaa erayo vocabularies oo aad iyo aad u qurux badan, sidoo kalena dhawaaqa aad buu muhiim u yahay. Si fiican i dhageyso ilana soo together. That's good. Muuqaalka intaan ugu gudagelin waxaan rabaa inaan la wadaago laba codsi oo ah laba kanaal, midna xisaab lagu soo gudbiyo, midna luqadda Soomaaliga ah, in aad taageertaan oo aad subscribe insha Allah kanaaladaas aad booqataan. waxyaabo aad iyo aad u qurux badan baa lagu soo gudbiyaa. Okay, muuqaalka inoo like gareeya insha Allah sina share gareeya haduu la yiraahdo. Fine. So marka halkan marka waxa wada sheekaysanay wiil iyo gabar. Okay, so A waa wiilka, B na waa gabadha. Are we together? That's good. So wiilka ayaa sheekada bilaabay wuxuu dhahay, good morning my lovely queen. Good morning my lovely queen. Okay, so and others waxa loo akhriyaa A ahaan love, lovely. Okay, so hadin lovely, vidana F ahaan ha u dhawaaqan, waa qalad badan Soomaalidu ay sameeyso. Okay, so you say lovely. Good morning my lovely queen. Subax wanaagsan boqoradayda aan jeclahay. Subax wanaagsan boqoradayda aan jeclahay. Fine. Morning to you my king. How is your day? Morning to you my king. How is your day? Subax la mid ah boqorkayga. How is your day? Maalintaada ka waran. Gabadha ayaa saas dhahaysa. Okay, good. Wiilka wuxuu dhahay, everything is well. Everything is well. Just missed your voice. Everything is well. Just missed your voice. Xaaladdu aad bay u kala degan tahay, wax walba waa okay. Just missed your voice. kaliya waxaan u xiisay codkaaga. Wiilka ayaa saas dhahayo. Gabadhu waxay tiri, are you sure? Are you sure? Miyaad hubtaa? Yani ma hubtaa inaad codkayga u xiistay saas leedahay. Okay, hadalkii si wadato waxay tiri, but you never called me last night. But you never called me last night. Laakiin imaada soo wicin habeenka xalay tahay. يعني waxaa leedahay waa ay xistay xalil dhamaad soo weyn saas gabadha leedahay. Wiilkii wuxuu dhahay, sorry dear. Sorry dear, aad baa uga xumahay qaali. I came home late and I was tired. I came home late and I was tired. wuxuu dhahay waqti dambe ayaan xaafadda imid waana daalanaa. I just went to bed and fall asleep. I just went to bed and fall asleep. Toos ayaan sariirta u aaday, horeyna ayaana ka seexday oo waan seexday. Saas ayuu leeyahay wiilkii. Gabadhu waxay tiri, I was waiting your call the whole day and you just decided to fall asleep without saying good night. Waxay tiri, I was waiting your call. Waxaan sugayay wicitaankaaga the whole day, maalintii oo dhan. And you just decided to fall asleep. waxaana iska go'aansatay inaad iska seexato without saying good night, adigoona soo dhihin habeen wanaagsan. yani xaaladeyda aanan soo wareysan. Okay, qaybta xigta isla aragno. I really apologize my queen. I really apologize my queen. aad baan kaaga raali gelinayaa boqoradeyda. saas ayuu dhahay wiilkii. I take the blame dear. It won't happen again. wuxuu dhahay aad baan kaaga raali gelinayaa boqoradeyda. I take the blame dear. aniga ayaa qaladka iska leh oo qaladka anaa qaadanayo. It won't, so ereyga waxa laga soo gaabiyay would not ayaa laga soo gaabiyay. so it won't happen again. mar dambe ma dhacayso. saas oo kale mar dambe ma sameeyna. saas ayuu leeyahay wiilkii. Okay, gabadhu waxay tiri, no problem dear. No problem dear. wax dhiba ma lahan qaali. What time are you going for work today? What time
are you going for work today waqtigee ayaad shaqada aadaysaa gabadha ayaa saas tiri wiilkii wuxuu dhahay I just woke up some minutes ago waxaan soo kacay daqiiqada ka hor I have to prepare myself right now wuxuu dhahay daqiiqada ka hor ayaan soo kacay hadeertaan ayaan isdiyaarinayaa gabadhu waxay tiri that sounds good that sounds good arintaas waa arin wanaagsan yani ereygan kale waxa la adeegsadaa qof marka wuxuu intuu ku sheego wixii aad ku raacayso yani you want to agree with someone so that sounds good arintaas waa arin wanaagsan ayay tiri gabadhi yani inaad hadda isdiyaarinayso oo shaqada u socoto okay wiilku wuxuu dhahay when will you be going to the university when will you be going to the university waqtigee ayaad jaamacadda aadaysaa so marka halkan waxa inooga cad wiilkana inuu shaqeeyo gabadhana ay wax barato jaamacadda ay aado ay halkan inoogu markaas aan ka dareemayna okay so gabadhu waxay tiri we have our final semester exam on the other week so we were given a break of 3 days gabadhu waxay tiri we have our final semester exam waxaan leenahay imtixaankii semesterka ahaa ee ugu dambeeyay on the other week isbuuca soo socdo so hadaba we were given a break of 3 days hadaba waxaan soo siiyay fasax yar oo 3 maalin ah yani inta imtixaanka uu sabilaaban okay sheekada aad waxay sabadan tahay qaybta xigta isla aragno okay wiilka ayaa wuxuu dhahay wish you good luck for your exams wish you good luck for your exams waxaan ku rajeynayaa khayr tira badan imtixaanka aad sameyn doonto yani gool wacan ayaan ku rajeynayaa nasiib wacan imtixaankaas aad sameynayso okay gabadhu waxay tiri dear I wanted to let you know about the fees of this semester gabadhu waxay tiri dear qaali I wanted to let you know waxaan rabay in aan kula socodsiiyo I wanted to let you know kayda so silent waxaan rabay in aan kula socodsiiyo about the fees of this semester waxaan rabay in aan kula socodsiiyo lacagta semesterkan yani jaamacadda la iska rabo so wiilkii wuxuu dhahay oh dear ha qaali I will give you the money on this Saturday waxaan ku siinay lacagta sabtidan yani inugu soo aadan okay so halkaas waxa inooga cad in wiilka uu gabadha uu jaamacadda uu ka bixiyo gabadha markaas xiriirka ka dhaxeeyo okay that's good b gabadha waxay tiri it will be my pleasure dear it will be my pleasure dear waxay tiri aad bay farxad igu tahay qaali yani in lacagta aad waqtigaas ay siinayso gabadha hadalka sii wadato waxay tiri thanks for your support aad baan ugu mahadsan tahay garab istaagaaga okay that's good wiilkii wuxuu dhahay don't mention it dear don't mention it dear so erayga wax lagu soo gaabiyay do not okay so you say don't mention it dear wuxuu dhahay waxba saas wax weyn maahan ha sheegin qaali yani in lacagta aan ku siinay oo lacag aan ka bixiyo wax weyn saas maahan okay okay wiilkii hadalka sii wato wuxuu dhahay you deserve more than that waxa u qalantaa intaas iyo in ka badan you deserve more than that intaas in ka badan ayaa u qalantaa b okay gabadhu waxay tiri love you so much aad baan ku jecelahay yani saas ay wiilka leedahay in jacaylkeeda u sheegaysa okay so wiilka ayaa wuxuu dhahay love you more my queen love you more my queen intaas in ka badan aniga waa ku jecelahay boqoradayda have a nice day waxaa ku rajeynayaa maalin wanaagsan b gabadha ayaa waxay tiri same to you my king maalin la mid ah boqorkayga take care iska taxadar okay yani caafimaadkaaga iyo amniga kulli ka taxadar saas ayay leedahay okay so ayra wanaagsan oo qof aad markaas aad jeceshahay ama ka agdhow waad u adeegsan kartaa take care iska taxadar are we together so marka sheekada aad bay u xiiso badneed waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka faa'iiday so muuqaalka ku soo cesho
si markaas meelaha aad isleedahay dhawaaqoodu waa ay ku dhibayaan si aad si fiican aad u dhuuxdo oo muxuu ahaa adigana akhrinta iyo kiciskaba ay kugu fududaadaan. Are we together? waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iiday sida ereyadaas isku raacayaan vocabulary laga yaabo inay meesha ku jiraan oo isleedahay maanta ayaa kugu horeysay. Are we together? So waa sheeko jacayl ah oo laba qof oo xiriir ka dhaxeeyo aan inoogu soo diyaariyay. Insha Allah hala practice garay. Are we together? ardayda aadka ugu liidato xagga akhrinta oo aadka u hooseyso koorsooyin qaas ah aan bixina oo Zoom iyo Telegram ku baxaan. So insha Allah numberkeena nagala soo xiriiraan haddii la yiraahdo si aan si fiican idin soo dhisnaa. Are we together? muuqaalkeena la gareeya sina sheegareeya 100,000 wax yar ay inooga dhiman waa ujeedaan. insha Allah taageerana garab istaaga si markaas annagana aan muuqaalo tiro badan aan kugu soo gudbino. muuqaalka xiga inta ka kulmi doono sidaas nabadgelyo.